muuqaalkan waxaan ku arkaynaa proximity oo ah qodobka shanaad ee design principles. Proximity waxaa leenahay waa in grouping iyo shaping la sameeyo. Designka markaa joogno waxaan u isticmaalaynaa proximity laba arin oo muhiim ah. midka koowaad waa in connection la sameeyo. Proximity waxa uu abuuri karaa xiriir ka dhaxeeya visual elements iyo compositionka, wuxuuna abuuri karaa wax tayo leh oo isu dhow kala sareeyo organization iyo structure leh. midka labaad ama sababta labaad waa in la kala jaro connectionka. Proximity waxa loo isticmaali karaa inaan wax xiriir ah lala sameynin visual elementska si loo kala jaro ama loo kala gooyo qaab dhismeedka isku xiran, iyadoo visual elementska la kala fogeynayo ama la isku dhaweynayo. waxaan apply gareynaynaa design principle of proximity. Proximity waa muhiim markii loo eego design principle, yani hierarchy asoo qaadana markii loo eego ama kala sareysiinta markii loo eego. Spaceka u dhaxeeya visual elements ama ay ku wada xiriirayaan waxay noqon karaan dynamic, waxayna ku xiran tahay ujeedka loo adeegsado. tusaalahan ila eeg, dhammaantood hal fariin ayaa ku wada qoran, laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaababka loo isticmaalo hagaajintooda marka design-ka la sameynayo. markaad design-ka joogtid, hal mid isku day inaad ka fogaato. waxa aad sameynayso haddii lacala ay kala duwanaadaan muuqaaladooda yuusan ku go'aaminin muuqaalka markaas aad aragto. yani designada kala duwan markaad sameyso, yani go'aankaaga ha ku saleynin yani design-ka qaabka u muuqda, ee waxaa fiirisaa ruleska design principle-ka ma maray iyo ruleska kale ah hore usoo qaadanay. markii visual elementska ay si random ah u muuqdaan ama hoos aanan yani qaab aanan wanaagsaneyn markay u muuqdaan, waxay u yaalaan si yani aanan laga fikirin qaabka loo dhigay. hadda tusaale midkan noo muuqdo kale wuxuu iskaga yaalaa sida line oo kale oo qaab caadi la iskugu xijiyay, marka wax micno ah oo gaar ah ma sameynayso. haddii proximity-ga si saxan ah iskugu geeno, waxaa noo soo baxayo negative space, kaas oo u muuqanayo hab cusub sida hadda midkan hor yaalo kale. awalka wuxuu ahaa sida caadi mid line oo kale, haddana wuxuu noqday qaab yani u eg saddex xagal, yani su'aale sambuuski oo kale, qaab sambuus u eg oo noqday. marka kaas waxaa keenay yani qaabka la iskugu aadiyay waxaa soo saaray wax kale oo cusub meesha ka soo dhaxbaxay. marka tan oo kale indhaha qofka waxay controleysaa in uu isla markii soo jeesto waxaan waxay yihiin qaabka noqonaysa inuu maskaxda ka fikiro oo qofka maskaxdiisa ay ku daawacmaan waxaan oo kale. markii la kala sii daayo oo yani aan wax loo fiirinin, ayadana sidaan oo kale noqonaysa sida kii hore oo kale. calaamadaha jira iyo logooyinka si wanaagsan ayaa u naqaanaa oo adduunka ka jiro. waxay ka yimaadaan isugeyn shape iyo proximity, kuwaasoo ka wada shaqeeyay sidee ugu daawacmi lahaayeen maskaxdeena una xusuusan lahayn waqti badan. yani tusaale loogada markii la sameynayo waxaa laga fikiraa qofkan ilaa intee in la egaa rabtaa, yani maskaxdiisa inay ku daawacmanto ama uu fahmo oo yani si fudud aysan oga bixin maskaxda. marka loogada markii la sameynayo waxaa laga fiiriyaa symbol, proximity-ga iyo creativity inay noqoto. marka wax muhiim ah waa proximity waa qodob awood badan ku leh design principleska. proximity oo aad si wanaagsan u isticmaasho waxay kaa saacidaysaa inaad soo saarto design wanaagsan oo cajiib ah. halkaas waxaa inoogu eg qodobka shanaad ee design principle ee ah proximity. markaad designka sameynayso, isweydii proximity sidee u isticmaashay, micno gooni ah ma gudbinayaa. markasta oo aad iska eegto designka aad sameynayso, waxaa kuu suuragalaya inaad soo saarto wax cilmiyeysan oo dadka kale la tacajubayaan micnaha markay arkaan. waynoo cashirka xiga insha Allah.